halkaan waa Muqdisho Soomaaliya oo aad kala socotaan BSS Radio oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya kaasoo hawada si toos aad uga dhageysanaysaan. maanta oo ah maalin sabti ah taariikhda milaadiguna tahay 28 bisha May ee 2016 taariikhda hijriguna ay ku beegan tahay 21 bisha 8 ee Shacbaan 1437 waxaad ku soo dhawaataan warkii saacadlaha. wararka ka imaanaya wadanka South Africa ayaa sheegaya in baarlamaanka dalkaasi uu ansixiyay isbedelka lagu sameeyay sharciga wadankaasi ee ku aadan hantida wadankaasi. sharciga ay ansixiyeen baarlamaanka wadanka South Africa ayaa sheegaya in dawladda ay awood u leedahay in ay gadato beeraha ama dhulalka ay sida gaarka ah u leeyihiin shacabka wadankaasi. inta badan beeraha wadankaasi ayaa waxaa gacanta ku haya dadka cadcad ee ku nool dhulkaasi ee xukunka wadankaasi horay u soo hayn jiray. waxa ayna sharcigani ku tilmaameen in uu yahay sharci lagula wareegayo dhulkoodii ayagoona sheegay in sharcigani uu la mid yahay sharcigii dhulka looga boobay shacabkii Zimbabwe. hase yeeshee waxaa arintani jawaab ka bixiyay xisbiga hadda talada haya ee wadankaasi ee markii la soo gaabiyo loo yaqaano ANC. waxa ayna sheegeen in sharcigani uusan la mid ahayn uuna ka duwan yahay boobkii shacabka Zimbabwe looga boobay dhulkoodii. cudurka daacuunka ayaa ka dilaacay xuduudda ay Soomaaliya la leedahay Kenya waxa uuna saameyn ba'an ku yeeshay dadka halkaasi ku nool. cudurkani dadka uu saameeyay ayaa sii badanaya ayadoona ay jiraan warar sheegaya in ay cudurkani u dhinteen dad badan ee ku nool xuduudda ay Soomaaliya la leedahay Kenya. sidoo kale waxaa sii kordhaya dadka ku sii dhimanaya cudurkani ayadoona ay shacabka halkaasi ku dhaqan ay cambaareeyeen ayagoona sidoo kale ka dalbaday hay'adaha caafimaadka in ay wax ka qabtaan cudurkani saameeyay. wali halka aad nagala socotaan waa BSS Radio oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya. wararka ka imaanaya dalka Brazil ayaa sheegaya in cudurka Zika uu si xad dhaaf ah ugu faafayo wadankaasi waxaana arintani walaac badan ka muujiyay hay'adaha caafimaadka ee ka howlgala wadankaasi iyo dhaqaatiir u dhashay dalkaasi. hay-adaha iyo dhaqaatiirta ka howlgala wadanka Brazil ayaa cabsi weyn ka muujiyay faafidda cudurkani waxayna sidoo kale ku taliyeen in dib loo dhigo ciyaaraha Olombikada ee ka dhacaysa wadankaasi si wax looga qabto cudurkani wada qabsanaya wadankooda. sidoo kale waxaa soo baxaya warar sheegaya in guddiga ciyaaraha Olombikada uu ku gacan saaray talooyinkaasi oo ay soo jeediyeen hay-adaha caafimaadka iyo dhaqaatiirta ka howlgala wadankaasi. musharaxa madaxtinimo ee wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa booqan doona magaalada San Diego ee dalka Mareykanka halkaasi oo ay ku sugan yihiin dad ka soo horjeeda. sidoo kale waxaa walaac weyn laga muujiyay in ay halkaasi isku dhac ku dhex maraan musharaxa taageerayaashiisa iyo kuwa ka soo horjeeda. wararka ka soo baxaya magaalada San Diego ayaa sheegaya in la geeyay booliska loogu talagalay in ay ka hortagaan rabshadaha kuwaasi oo la doonayo in ay ka hortagaan haddii ay bilowdaan mudaharaadyo looga soo horjeedo Mr. Trump. Donald Trump ayaa horay u sheegay inuu ka baxayo heshiisyadii cimilada uu Mareykanka galay asigoona sheegay in uu ka dhigayo waxba kama jiraan. sidoo kale musharaxani ayaa sheegay in uu darbi ka dhisi doono xuduudda Mexico. wali halka aad nagala socotaan waa BSS Radio oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya.
madaxweynaha waddanka Masar Cabdilfataax Asiisi ayaa xarunta madaxtooyada ee Masar ee ku taala caasimadda waddankaasi ku qaabilay madaxweynaha waddanka Falastiin Mahmoud Abbas Abu Maazin. wararka ka imaanaya dalka Masar ayaa sheegaya in labadaani mas'uul ay ka wada hadleen sidii ay u xoojin lahaayeen iskaashiga ka dhaxeeya labada dal. sidoo kale madaxweynaha Masar ayaa sheegay inuu ku dadaali doono sidii uu u dhexdhexaadin lahaa Falastiin iyo Israa'iil, asigoona sidoo kale ka dalbaday Falastiiniyiinta in ay ismideeyaan kooxaha kala goonigooniga ah si ay xal uga gaaraan dagaalka ay kula jiraan Israa'iil. Cabdilfataax Asiisi ayaa sidoo kale hadaladiisii raaciyay in wadada kaliya ay Falastiin uga bixi karaan jahwareerka ay tahay in ay heshiis qaataan ayna ismideeyaan, asigoona ku adkeeyay in laga maarmaan ay tahay in waddankaasi ay ka jirto laba dowladood Falastiin iyo Israa'iil ay kala xukumaan. waxa uuna sidoo kale Israa'iil ka dalbaday in ay aqbalaan arrintaani uu sheegay in ay tahay xalka kaliya ee lagu xalin karo colaadda ka taagan waddanka Falastiin. wararka naga soo gaaraya badda u dhaxaysa Liibiya iyo Talyaaniga ayaa sheegaya in baddaasi ku quustay doon ay saarnaayeen ku dhawaad 350 ruux, waxa ayna wararku sheegayaan in doonidani ay ku wajahnay dalka Talyaaniga. ciidamada ilaalada xeebaha Talyaaniga ayaa markiiba u diray markab si uu u badbaadiyo doontaasi dadka saaran, waxa ayna ku guuleysteen in ay badbaadiyaan 130 qof ayagoo weli baadigoob ku haya dadka dhiman. waxa ayna saraakiisha warbaahinta u sheegeen in ay sii wadayaan raadinta dadka ku lumay baddaasi ee la la'yahay meydkoodii. wararka ayaa sheegaya saraakiisha Talyaaniga ee soo badbaadiyay dadka saarnaa doontaasi quustay ay ka soo qaadeen sawiro. baddaani u dhaxaysa Liibiya iyo Talyaaniga ayaa inta badan waxaa ku baaba'a dadka ka soo jeeda qaaradda Afrika, ayagoo ay ugu badan yihiin dadka ka soo jeeda Soomaaliya, Itoobiya, Suudaan iyo wadamo la diris ah. midowga Yurub ayaa sidoo kale sheegay in maalintii Khamiista ahayd ay baddaasi ku dhinteen 30 ruux oo tahriibayaal ahaa kadib markii ay quustay doontii ay saarnaayeen. waxaana intaasi noogu dhammaaday warkii saacadlaha ee aad kala socoteen BSS Radio oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya. ciduu dhaafana waxa ay dib uga heli kartaa barta aynu ku leenahay internetka oo ah www.bss-somalia.com.